daawadayaal warbixintan waxaynu ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee muddooyinkii u dambeeyeyba ka aloosnaa gudaha Somaliland. Khilaafkan ayaa waxa uu soo bilaabmay kadib markii xukuumadda Somaliland ay shaacisay inay si rasmi ah u furan yihiin urur siyaasadeedada dalku. Arrintaasi ayaa waxa si weyn uga biyo diiday xisbiyada mucaaradka Somaliland ee u cudiya wadani, iyagoo sheegay in doorashada keliya ay aqbali karaan isla markaana ay ka qaybgeli karaan ay tahay ta madaxtooyada oo qura. Khilaafkaasi ayaa muddo ku dhow 6 bilood waxa uu ka jiray gudaha Somaliland, iyadoo markii dambena xisbiyada mucaaradka Somaliland oo isbahaysanaya ay ku dhawaaqeen inay bilaabi doonaan banaanbaxyo lagaga soo horjeedo xukuumadda Somaliland kadib markii mudaharaadku bilaabmay 11kii bisha Agoosto ee sanadkan. Waxa markii ugu horeysay gudaha Somaliland ku dhintay dadkii ugu badnaa ee ka soo qayb gala mudaharaadada ka dhacay Somaliland, iyadoo dhimashadu ay gaadhay ilaa 6 qof iyo boqolaal kale oo ku dhaawacmay dibadbaxyada ka dhacayay gudaha Somaliland. Waxaa sidoo kale la xidhiidhay mas'uuliyiin badan oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka Somaliland, dad shacab ah oo markii ugu horeysay ay ka mid ahaayeen haween. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa ilaa hadda taagan, iyadoo mar walba hawada la isku marinayay dhaliilo xooggan. Shacabka Somaliland ayaa khilaafyadaasi siyaasadeed walaac badan ka qabay, iyadoo dad badan oo madax dhaqameed ah, culimo iyo ganacsato ay isku dayayeen inay dhexdhexaadiyaan isla markaana ay isku soo jiidaan labada dhan, walow markii dambe ay ka surtoobi weyday dhanka xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha. Ismarwaaga siyaasadeed ayaa markii dambe u gudbay golayaasha wakiilada iyo guurtida Somaliland, iyadoo golaha wakiilada Somaliland ay ansixiyeen xeer sheegaya in la israaciyo doorashada madaxtooyada iyo midda ururada, taasoo ay xildhibaanada golahaasi ku kala qaybsameen kadib markii xildhibaano u badnaa muxaafid ay sheegeen markii la ansixinayay xeerkaasi inuu kooramka golahaasi buuxin. Intaasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa golaha kale ee guurtida u gudbiyay xeerka ay soo ansixiyeen. Kadibna gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa golaha wakiilada Somaliland dib ugu soo celiyay xeerkaasi, iyadoo la arkayay xeerkaasoo kartoon lagu soo riday oo la isku tuurtuurayo labada gole dhexdooda, ilaa ugu dambeyntii xeerkaasi uu ku qoyay markii uu u hoyday habeennimadii labada gole ee wakiilada iyo guurtida dhexdooda. Arrintaasi ayaa mar kale waxay khilaaf ka dhex istaadhay labada gole ee sharci dejinta Somaliland ee guurtida iyo wakiilada, iyadoo khilaafka labada gole markii uu horeeyay dibadda u soo baxay. Dhanka kale, golaha wakiilada Somaliland ayaa iyaga qudhooga waxaa ka dhexeeya khilaaf siyaasadeed. Khilaafkaas oo keenay in golaha wakiilada Somaliland in muddo 7 ah uunu shaqooyinkii caadiga ahaa ee golahaasi looga bartay ayna ka jirin gudaha golaha, iyadoo xildhibaanadii ugu badnaa ee Somaliland gaar ahaana wakiiladu ay dibadmeer yihiin. daawadayaal, khilaafka ka taagan doorashooyinka Somaliland gaar ahaana qabashada doorashada madaxtooyada Somaliland ayaa weli ilaa hadda ka jira gudaha Somaliland, iyadoo xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ay maalinnimadii shalay madaxweynaha Somaliland u kordhiyeen muddo 2 sano ah. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.